waxaan ku soo dhex jirnay maxay dadku u guursadaan, waa maxay sababaha dadka ay u guursadaan. hore waxaan usoo sheegnay dadku waxay u guursadaan ilaa 6 arrimood. hore waxaan usoo qaadanay 4 arrimood hore usoo qaad. dadku waxay u guursadaan amarka ilaahay uu amray oo diinta ay amartay darteed dadku ay u guursadaan, waana kan ugu qiimaha badan leh. qofka inuu u guursado qaadashada amarka alle waa kan ugu qiimaha badan. sidoo kale dadku waxay u guursadaan dadka dartooda. dadka markay kusoo fiiriyaan oo da'daada ay weynaato aadna guursan 40 jir aad noqotid 30 jir aad noqotid, dadku idil si wada jir iyo kuu soo eegayaan isagoo dhahaya war qofkan maxaa haysta, muu xanuunsan yahay, maxaa ku dhacay, su-aal la isweydiinaya. taa waxay keentaa in qofkii uu guursado ayay idin keentaa. qodobka saddexaad, dadku waxay u guursadaan calaaqaadka jinsiga ah ee ilaahay uu ku abuuray, waxyaabaha u baahan yihiin sida jimaaci, shahwadda ilaahay ku abuuray gudashadeeda iyo meel uu ku guto darteed ay dadka qaar u guursadaan. ayadana waa qodob aada muhiim u ah. qodobka afraad, dadku waxay u guursadaan inay noqdaan yacni hooyo iyo aabbo inay noqdaanna way u guursadaan. 4taa qodob yaan horey usoo qaadanay. qodobka shanaad, dadku waxay u guursadaan xaalado nafsi ah darteed ay u guursadaan, oo ah qofkii inuu dareemayo rabitaan oo jacayl inuu dareemayo, tusaale inuu qof uu jecel yahay, qofka uu rabo, waxyaabahan inuu ku riixayo in qofka isagaa uu guursado. marka taa iyadaana waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka isku guursadaan, oo qofka inuu qofka uu jeclaado, walow jacaylka xaqiiqiga ee dhabta ah ma guurka ka hor miyuu yimaadaa mise guurkiyuu ka dambeeyaane, dabcan waan arki doonaa xalaqooyinkeena kalean ku arki doonaa. marka qofka waxyaabaha wuxuu u guursado oo xaaladaha nafsiga waxaa ka mid a qofka inuu dareemayo jacayl uu ku jiro, qof uu jecel yahay, uu rabo qofka isaga ah inuu nolosha la wadaago. waxay ka mid tahay waxyaabaha la isu guursado ee qofku uu guursado. tan kale, dadka ugu fiican inay jacaylkooda isku sheegtaan ku habboon ee ugu qiimaha badan waa xaaskaaga aada qabtid. waxyaabaha ayaa darada waxaa ka mid a dadka inta badan lamaanaha ee wada nool waxaad moodaa inayna mararka qaar qofka wiilka unan xaaskiisa ku dhehaynin gacalisadeeda qaaligeed waan ku jeclahay, iyadana aynan dhehaynin gacaliye waan ku jeclahay inaynan dhihi karin, oo dadka intoodba aad moodaysidba wax ceeb la ah oo muxuu ahaa oo aan sheegi karin ayay la tahay. tahayada marka waxay ka mid tahay waxyaabaha khaldan. waxaa la rabaa ninkaaga inaad dhahdid xabiibi waan ku jeclahay, adiga xaaskaaga inaad dhahdid, oo labadii qofood raxmad iyo naxariis ay dhex marto, galgacayl uu dhex maro, oo muxuu ahaa 2 qof oo isdanaynaysa inay noqdaan. hase ilaa ka berigii la wada sheekaysanayay keliya rabitaanka aad u qabtay iyo muxuu ahaa qaabka u danayn jirtay markaad guursatay oo wada dhowr carruur ay ku dhashay, inaad wixii dhammaa iyo hadalladii wanaagsanaa iyo inaad u sheegi weydo waxaad u qabtid waa ayaan dara. inta badan dadka soomaalida waxaa ku jira adeeg aan loo baahnayn soomaalida ku jira. xitaa ninka naagtiisa haduu u dhiman uu jecel yahay wuu iska gafuuranayaa, bis ma dhihi karo xabiibta waan ku jecel, ayada lafteeda ma dhehays, way dhimanay maahayna mama dhehays. marka taayada waa khalad. waxaa la rabaa ninkaaga inaad dhahdid waan ku jecelahay. halkan waxaan ku qaadan doonaa waxyaabaha dadka u guursan waxaa ka mid ah rabitaankaas jacaylka qofka markuu ku jiro. halkan waxaan ku qaadan doonaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo mimbarkii muslimiinta ka iclaami jiray, ka sheegi jiray inuu xaaskiisu jecel yahay. bal qisadan ayada aan wada dhegeysanno. saxaabigii dhihi jiray camar bin caas radiallahu canhu oo nin aad iyo aad u caqli badan oo la dhihi jiray daahiyat lcarab, dawaahi lcarab 4 yaa loo qeydaa dadka carabta uga caqli badan. waxaa la dhihi jiray kuwii carabta wareeriyey 4 ahaayeen, camar bin caas iyo muxuu ahaa ninkii la jiray ziyaad bin abihi iyo mughirata ibnu shucbin iyo mucaawiya bin abi sufyaan. 4taa waxaa la jiray dawaahi lcarab. marka ninkan camar ah yaa maalin maalmaha ka mid ah yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa ciidan iyo madax kaga dhigay. ciidankaa uu madaxda kaga dhigayo berigaa waxaa joogay oo dadkii nebi ugu dhadhowaa asxaabtiisi abubakar, cumar, cuthmaan, cali, asxaabtii nebiga oo joogto dhammaantood yaa camar ciidankii madax looga dhigay. marka camar bin caas taa ayadaa waxay ku qasabtay inuu camar uu yani nafsadiis uu dareemo arin ah nebiga calayhi salaatu wasalaam adigooba dadka kugu jecel yahay. arrin saasa waxa uu yani saxaabigan jaliilkaa ku abuurmay. marka isagoo raba inuu arrintaa ayada uu ka salgaaro nebiga uu u maleeyay inuu qofka dadku ugu jecel yahay in camar la yihahdo saa darteed taariikhda lagu qoro
nabigu intuu weydiiye uu yidhaahda camar yaad jecesha rasuulka ilaahi adigaan dadka kugu jecelahay sidaas yuu raba camar bin cas radiallahu canhu marka maadaama cumar iyo abubakar oo jooga asxaabtii waaweyneed isaga laga dhigay wuxuu u qaatay marka inuu nabiga aad u jecel yahay markaasuu maalmaha ka badan nabigu wuxuu la qaatay yani fadhi gaar ah ayuu nabiga la qaatay calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu ku rasuulka ilaahayo waxaan rabaa maanta inaan arrin ka sheekaysan markaasuu soo dhow maasha allah camar soo dhowow markaasuu su-aashu weyd wuxuu ku bilaabay rasuulka ilaahayo wuxuu adiga dadkiyaad ugu jeceshahay rasuulka ilaahayo dadkiyaad ugu jeceshahay fiiri waa nabiga alayh salaam oo mimbarkiisa iyo masaajidkii jooga yaa su-aashaa la weydiinaya markaasu wuxuu yidhi waxaan ugu jecelahay xaaskayga caaisha ayaan ugu jecelahay dadka u fiirsa nabiga alayh salatu salaam yani wuu sheegayaa fagaarahaasuu ka sheegayaa inuu xaaskiisa u jecel yahay inaga maanta ma dhihi karno waxyaabaha inaga dhumay ee mashaakil aqaladeena kurid waxay tahay inaan sheegi la-ana xaaskaaga aad jeceshahay hata anaan dhihi karin waan ku jecelahay oo aad u haysatidba inay tahay wax aan macno lahayn oo aan loo baahnayn qalbiga inaad ka jeceshahay inaad u sheegata ayaa qurux badan marka camar maadaama uu yidhi nabi alay slam caaishaan jecelahay wuxuu yidhi ilaa isaga inuu soo galo raa mogtahay markaas wuxuu yidhi rasuulka ilaahi xagga raggaan ka hadlaya xagga ragga yaad ugu jeceshahay markaasuu yidhi aabaheed abubakar camar jaa weli ma quusan wuxuu yidhi waan fahmay yaa ku xig rasuulka ilaahi yaad ugu sii jeceshahay dadka markaasuu yidhi cumar bin khadaab yuu kusii xijiyey isagoo raba camar weli muusan ka quusan rasuulka ilaahi dadka yaad ugu sii jeceshahay markaasuu yidhi cuthmaan ibnu cafaan camar wuxuu yidhi markaa kadib waan iska aamusay wuxuu yidhi waxaan ka baqay nebiga inuu gadaal inuu igeeyaanba ka baqay maxaa siduu qof u sheegay uu leeyahay hebelaan ugu jecelahay kaasaan ugu jecelahay waxaanba ka baquu yidhi in nebiga uu idaba mariyo oo meel gadaal uu igeeyo yaan ka baqay saa darteed wuxuu waan iska aamusay marka u fiirso walaalahii muslimiinta ah u fiirso nebiga calayhi salatu wasalaam wuu sheegan jiray waxa uu u qabo xaaskiisa markaasuu u jiri waan ku jecelahay dadka qaar u haysta macnaa maadaama aad soo xaraysay oo carruur ay ku dhalayso oo guriga ay kuu joogto hadda maxay micno leedahay xaaskaaga inaad dhahdaa waan ku jecelahay iyo maxay dadka qaar u haysta inay ceeb tahay iyo in wax laga gudbi inay tahay u haystaan marka taageera ma aha waxaa la rabaa xaaskaaga qaaliga ah inaad dhahdaa waan ku jecelahay sidaasaa tahay adigaan dadka kugu jecelahay waxay dareemaysaa nolosha farxad ayay ku dareemaysaa adiga laftaada waxaa la rabaa gabar yahay ninkaaga inaad dhahdaa waan ku jecelahay oo adigoo kaga dayanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam marka xadiiska nabigna wuxuu alayh salatu wasalaam idaa axaba axadukum akhaahu falyuclinhu anahu axabah qof hadduu walaalkii uu jeclaado qof walaalkii ah nabig wuxuu alayh sala slam qofka isaga ha u sheegto jacaylka uu qabo marka qof jacaylkaada loo sheegtaana waxaa ugu qiimo badan oo ugu weyn xaaskaaga aad qabtid yaa ugu habboon in loo sheegtaa marka sababaha loo guursado ee nafsiga ah ee qofka uu dareemaya waxaa ka mid a jacaylka uu qofka u qabo waxyaabaha qofka u guursado ayay ka mid tahay waxaa kaloo jira dadka ay u guursadaan qofka inuu jecel yahay qadarinta in la qadariyo in la xushmeeyo oo qofkii la karaameeyo inuu jecel yahay sababaha waxay ka mid tahay dadka ay u guursadaan oo dadkaan waxay leeyihin inaad dhahdaa in la yihahdo qofkii wallaahi abow adigaan dadka kugu jecelahay wallaahi waan kugu faanaa war libaaxaygiyaa tahay yacni qof muxuu dareemaya markaa isaga ah qofkaas wuxuu dareemayaa xushmad iyo qadarinta iyo hadalkaas wuxuu ku abuurayaa farxad yuu ku abuurayaa marka runtii meeshan arrinka muhiimka wuxuu yahay dadka markay haasaabaha ku jiraan oo la isguursanin oo la sheekeysanayo hadallada la isku soo qorqoraa iyo hadallada la isku sheegayo wax sidii ay u macaan badan yihiin waad la yaabaysaa oo waxaad u qaadanaysaa in la rabo keliya gabadha in lagu soo xargeliyo gabadhan ay rabto keliya ninkan inay u muujiso inay macnaha isaga waxaas u noqoto keliya in loo baahnaa saasaad moodaa maxaa diiday markii la isguursaday oo guri la wada degay oo maxaa diiday in hadallo qurux badan la isula hadlo oo muxuu ahaa qof walba qofka kale u yidhaahdo wallahi waan kugu faanaa wallahi xaaskayga qaaliga adiga haddii aad ahaan lahayd nolosheeda sidaas noqon lahayd wallahi maxaa diiday hadallo qurux badan in lagu hadlo maadaama berigii horeba la isdhihi jiray hadda ayay kasii habboon tahay marka waa inaynu iska daynaa caadadan oo soomaaliyeed oo aad adeega ku dhisane waa inaa gabadhi ay noqotaa gabar jilacsan oo ninkeedii muxuu ahaa hadallo fiican ku dhahda xitaa waxay ogaataa ninkaaga mar walba daasaa leeda waan ku jeclaha abow sidaas mar badlaa leedahay xitaa ninkaaga waxaa laga yaabaa inuusan kaa ag tegin inuu xaas kale kaa guursanin in mar walba hadalladaada macaan ee aad ku hadlaysid waxa ayaa laga yaabaa inuu weligii agtaada uu joogo marka waa ogahay masaarka iyo macnaha gabdhaha ma jecla in lala guursado marka haddaad rabto ninkaaga inaad kasbatid waxaad ku kasban kartaa
hadallo macaan hadallo qurux badan yaad ku kasban kartaa adiga ninka waxaa rabaa gabadhan aad xaaska ku ah si baari ay kugu sii noqoto waa inaad berigii aad sukaansan jirtay oo aad sheekada idinka dhexaysay fariimaha gabayada u qori jirtay iyo suugaantaa soo diyaarsan jirtay beriga aad sheekaysan jirtay sidaas si kasii qurux badan yaa la rabaa gabadha markay xaas kuu noqotane inaad kula dhaqantid taa ayaa aad iyo aad u haboon waxaa ka mid a waxyaabaha sida nafsad ahaan qofka uu dareemaya u guursa waxaa ka mid a inuu ka cararayo kelinimada qof dadka hore waxay u guursanayaa inuu yacni kelinimada uu keligii u yahay yuu necbayst wuxuu rabaa in lamaano u yeesho qof uu la noolaada marka dhibaatada dhici kartaa waxay tahay wiilkan gabadhii uu guursaday gabadha waxay ka cararaysa kelinimo ka waran haddii aad habeen barkii guriga usoo hooyatid sidaad aroortii u baxdo hadda habeen barkii guriga soo gasho 6 saac habeennimo gabadha maxay dareemaysaa marka hore waxay rabtaa inaad wehelisid wehel u noqotay rabto nolosheeda taa waxay sabaysaa marka guriga isagaa inuu dhibaato ku timaado geesta kale waxaa laga yaabaa gabadhii guriga hooyad markay ku nooleed waxaa laga yaabaa inay hurdo weyneedo iska hurdo jirto hooyadeedaa joogta walaasheedaa joogta canjeelada waa la dubi jiray wax walba waa la qaban jiray mushkiladu waxay ka dhacaysaa ninkeedii oo shaqo aadi lahaa 4 saac bay ka soo kacaysaa taa ayadaa maxay keenaysaa iyadana mushkilad adigii ninkaagii dhibaato inay idinka dhex dhalato ayay keenaysaa marka waxaa la rabaa inaad dareentid in muxuu ahaa noloshii hore aad ku jirto nolosha inay ka duwan tahay la rabo ninkaaga inaad kasbatid waxyaaba wanaaga u samaysid oo muxuu ahaa adigana aadna marna ayna dhicin inaad ka dimartaa waxyaabaha kale ee dadka u guursadaan waxaa ka mid a qodobka 6aad dadka u guursadaan waxaa ka mid a dadka inay helaan xoolo ama maal inay helaan dartood u guursadaan helitaanka xoolo iyo adduunyo iyo maal adduunyo helitaankooda dartood ay dadka u guursadaan tusaale gabadh ninkan waxay leedahay ninkan maadaama uu maal uu haysto xoolo uu haysto si aad xoolaha u heshid hantidaa faraha badan darteed yay u guursanaysaa ninkan marka taa ayada ah ama wiilka waxaa laga yaaba inuu dhaho gabadhan maadaama reer maal qabeen ay ka dhalatay si berri micnaha u guurso lacal aabaheed markii uu dhinto dhaxal fara badanaa ku soo aadaya si adiga noloshaada ay u fiicnaato oo dhaxalkaa gabadhaad hantidaa u hesho darteed saasuu u guursanaya marka waana tan ugu liidato inuu qofka sidaa u guursado wax fiican maaha maxaa yeelay qofkii gabar u guursada hantideeda darteed ama cizid u guursadaa fakri unbuu ka dhexlaya wax kale kama dhexlayo marka waxaa muhiima sababaha ugu fiican ee dadku u guursadaan yani inuu ilaahay diinta darteed qodobkii koowaad inuu diinta darteed qofku inuu guursado iyo qodobadaasa kasii fiican intaad u guursan lahayd keliya aad heshid maal aad ka heshid gabadhan u guursatid haddii beri marka hanti la waayo xoolihii la waayo gabadhan ninkii lacag u lahaa markay guursanaysa hadduu dhibaato iyo fakri ku dhaco maxay sameynaya lacagtii loo soo tuuri jiray wixii loo keeni jiray markii la waayo maxaa dhacaya walaal waxay leedahay aniga muxuu ahaa dhibaatada kuma jiri karee waan kaa tegaya saa darteed gabdho fara badan waxaad arkaysaa inay guurka ay u arkeen wax ciyaara oo muxuu ahaa hanti iyo xoolo lagu raadi walaasheeda muslimada ee taa ayada waa qiimo darro adigana sharaf kuma gaaraysan qiimana kuma gaaraysan waxaa kuu haboon inaad u guursatid ujeedooyin kale u guursa laakiin ujeedo ah xoolo iyo maal helitaankiisa dartiis ha u guursanin taa ayada marka waa waxyaabaha loo guursado qodobka 6aad waa dadka helitaanka inay xoolo ay helaan dartooda u guursadaan marka haddii ninkan uu kusoo furay oo xoolo darteed u guursatay beri mid kale guursatay lacag darteed u guursatay mustaqbalkaaga dambe wuxuu ku dambeynayaa jahwareer iyo mashaakil ayuu ku dambeynayaa marka xalaqadan